xaflad ballaadhan oo lagu soo dhaweynayay xilka dib loogu magacaabay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa lagu qabtay xaafadda Islii waxaana soo qaban qaabiyay jaaliyada kumada ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka Kenya iyo Soomaaliya iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana halkaas laga jeediyay hadallo lagu soo dhaweynayay xilka dib loogu dhiibay wasiirka iyo shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu soo qabtay dalka iyo bulshada Soomaaliyeed intuu xilkaasi hayay qofka fiican baa ku xiga nin xun kuma xigo haddii Soomaalidu sida u fakari lahayd oo loogu xisaabtami lahaa yaa wax qabanaya yaa daacad ah yaa dadka wax ka dhigi kara ama wax gaarsiin kara haddii taa lagu fakari lahaa runtii waxa weeye da'yarteenu badaha kuma dhamaateen waxaan leeyahay marka wasiirka iyo wasiiradiisaba dhamaantood waxaan leenahay hambalyo oo dadkoo dhan u simeeyo wasiirkeena inuu yahay oo nin kasta oo Soomaali oo wasiir u yahayna waana u hambalyeynaa u sii taagayna waana u duceyneynaa in Ilaahay mataqaana xilku qaaday in Ilaahay la garab galo oo Ilaahay la toosiyo Maxamed Cabdullaahi Salaad waxqabadkiisii waxaan ahaa gudoomiyaha guddiga gaadiidka iyo dekedaha wax badan uu ku qabtay civil aviation-ka maadaama ay tarafilo u dhiman tahay waxa lagu soo celiyay waa shaqo wanaagiisa waxaan leeyahay wasiirkeena gaadiidka hambalyo mar labaad wasiirada federaalkana dhamaan anoo kala reebeynin hambalyaan leeyahay qaasatan wasiirada kuumado maadaama ay kusoo biirtay gabar haddana hambalyaan leeyahay Omar ma ahayn nin matalayo qabiil ma ahayn nin siyaasi ku yimaad laakiin waa nin aqoon-yahan oo technocrata markuu madaxweynaha farmaajo soo qaadanaya waxaan u maleynay background check buu ku sameeyay wuxuuna aaminsanaa inuu yahay nin wax ka bedeli doono horumarka iyo jagada loo dhiibay marka waxaan leenahay anagana waan ku garab taaganahay ducana waan ku kabanaa insha Allah xilkaada hor u socod make Somalia and all of us proud insha Allah duuleeyahay Omar uu mahadsan yahay iyo dawladda dhamaanteed aad bay mahadsan tahay waxyaalaha ay qabteen ama waxyaalaha uu qabtay uma loogu soo celiye hadduu nin qaran ahayna lama soo celiyeen marka insha Allah taala hadii ilaahay raawo waan soo dhaweyneynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh in la magacaabo mar labaadna waxa ay ku suurto gashay inuu yahay nin howlkar ah oo hawsha uu hayo u qalmo sababtoo ah hadduu soo howlkar ahayn lama soo celiyeen kulliba nin qaran inuu yahay nin Soomaaliyeed inuu yahay ummadda Soomaaliya si daacad ugu shaqeynayo sidaas loo soo celiyay wasiir Omar xilka loo magacaabay Allah ku ceebtiro ummadda Soomaaliyeedna midnimo iyo muwaafaqo Allah gaarsiiyo Cabdirashiid Obsiye Cable TV Nairobi moogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai موبايلو تلاجدو قسالدو tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bas bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333